halkani waa idaacadii raadiyo hadal wanaajiye 101.7 FM Edmonton. dhegaystayaal sidaad hore nooga barateen waxaanu idin haynaa waraysi aad u xiiso badan oo aan ku waraysanayno gudoomiyaha ururka cusub ee macaaridka isku taga reer Djibouti ee dimuqraadiyadda bulshada oo afka qalaad loo yaqaan Union des Djiboutiens pour la démocratie sociale fadhigiisu yahay magaalada Ottawa. mudane Ismaaciil Yuusuf Cabdi. mudane Ismaaciil ku soo dhow idaacadda raadiyo hadal wanaajiye 101.7 FM Edmonton. waad mahadsantahay cabdu. mudane Ismaaciil dhawaan urur siyaasadeed baad samaysteen maadaama ururo kale hore u jireen maxay tahay sababta keentay in aad urur cusub la timaadaan? horta waad mahadsan tahay cabdu. kolkaa su-aashan aad weydiisay intaan aanan ka jawaabin waxaan rabay in aan dhegeystayaasha raadiyogiina aan salaan ka sido madaxda maaragtay ururka iyo xubnaha maaragtay ururka ku jiraba inaan u gudbiyo dhegeystayaashiina kuwa Maraykanka jooga, kuwa Yurubta jooga, kuwa wadankii jooga iyo dad maaragtay maxaan radaa dadkeena badan ee ku kala daadsan adduunyada inaan gabigoodba ma garanaysaa salaan in ma maxaan radaa engars waxaan doonaya cabdo inaan ku sheego horta anigu shakhsi ahaan in aan horta siyaasad ma maxaan radaa in badan ugu soo jiray ardayga markaan ahaa maaragtay ururadii ardayda in ma maxaan radaa aan kasoo qeyb qaato ma maxaan radaa madaxdooda kamid ahaa marka aan maaragtay maxaan ku dhahdaa Djibouti soo galayna 1991 ayaan maaragtay radaa haddana maaragtay radaa aan bilownay urur UDD magaranaysaa afka Faransiiska lagu yiraahdo oo kala xumadii wadanka ka jirtay magaranaysaa maaragtay radaa aan kaga soo hor maaragtay jeesan kadib ururo maaragtay radaa in aan sameynay isku tag magaranaysaa ururada macaaridka 1992 oo maaragtay radaa gudoomiye ku xigay aan maaragtay maxaan ku dhahdaa halkaasi ka noqdo kolkaas siyaasaddu waxaan arkaa uga jeedaa wax maaragtay maanta jadiida ma ay kolkaasi marka siyaasad lasoo laga hadlo nin kastiba wuxuu eegaa war siyaasadani ururadan iminka isku tegay USN ay maaragtay radaa siyaasadan ay soo bandhigeen horta anagu waa saluugnay oo maaragtay maxaan ku dhahdaa wax maaragtay noo cuntaba way noqoni weyday kolkaasi marka aanu sidaasi u eegnay waxa aanu nidhi war wadankani ma rabno in Ismaaciil kale lagu bedelo ma garanaysaa ujeedadu waxayaan in wadankani wax badan laga bedelo in maaragtay talada iyo siyaasadda wadankani uu ku dhaqmayo in maaragtay maxaan ku dhahdaa wax laga bedelo kolkaasi taasina waanu ka weynay qoraahihii iyo maaragtay siyaasadii ay soo jeedinayeen ururadan ma garanaysaa isku tegay ma garanaysaa USN kama dhigna ma garanaysaa ma aha ururo caariba oo maaragtay maxaan ku dhahdaa kasoo horjeeda dawladda laakiinse waxay ila tahay annagu waxaan nidhi waxyaabo kale oo gooniya ayaanu keeni karnaa taasaa keentay ma garanaysaa inaan maanta urur maaragtay radaa jadiida ah dalka Djibouti siyaasadda iyo xukuumadda baarlamaanka ama dhammaan hay'adaha dawliga dhammaantoodba waxay ku salaysan yihiin qabiil arrintaas idinku maxaad ka qabanaysaan? waad mahadsantahay cabdi. waa run horta waxa aan doonayay inaan sheego qabiilku wax maaragtay maanta bilaabay ma aha kolkaa qabiilka waxaa wadanka ku dhaqayay ma garanaysaa dawladdii Faransiisku iyaa bilowday oo maaragtay maxaan ku dhahdaa keentay inay in la kala saarto waa tii magac badan u bixisay markii ugu horreysay waxay ahayd xeebta Faransiiska ma garanaysaa ee dadka Soomaaliyeed ku dhaqmo taasoo maaragtay maxaan ku dhahdaa ilowri ummadii kale ee meesha maaragtay maxaan ku dhahdaa inagula dhaqnayd afar ha ahaato carab ha ahaato xabashi ha ahaato talyaan ciday doonta ha ahaato wixii wadanka u wada dhashay ma garanaysaa in la iloobo ma garanaysaa Faransiis iyo ma garanaysaa maxaan ku dhahdaa qabiil qura meeshii laga soo saaro
taa markuu kasoo tegay magaranaysaa de suu haddana inoo kala maaragtay tafaariqeeyo magaranaysaa inoo kala saaro wuxuu yidhi waa territoire français magaranaysaa afar isa markaa haddana inuu maaragta laba beriy magaranaysaa soo saaro uu intii kale magaranaysaa dibadda ka dhigu yidhaahdo kuwaasi magaranaysaa waddanka iyagu ma ay aha ayuu haddana maaragta soo bandhigay maaragta gumaysigii faransiisku dowladdii markaa meesha ka dhalatay ahayd dowladdii xasan guleed allah u naxariistee dee waxba kama bedelin oo tii unbay maaragta ku dhaqantay oo tii unbay maaragta ku waddanka magaranaysaa ay ku maamushay kolkaasi ismaaciil cumarna halkii unbuu maaragta isaguna ka qaaday uu dee maaragta dadkii sidii uu u kala tafaariqeyn lahaa uu dee u kala jebin lahaa si uu maaragta dowladiisa sal ugu dhigo ayuunbuu maaragta falankeed isaguna uu qabtay anigu mid baan odhan lahaa magaranaysaa marka de waa la yidhaahdaa dowladdani magaranaysaa waa dowlad cafareed dowladdani waxaa la waa dowlad qiiseed waa dowlad horta dowladdani afar iyo qiis waxba kuma wada qabaan magaranaysaa intooda badan afar qof magaranaysaa oo deedoo meesha haysata ayuunbaa maaragta dowladdan ku rakaabsata khayraadkeeda maaragta qaadato cunta kolkaasi inta kalena dee magacuun baa magaranaysaa maxaan ku radaa raaca annagu markaasi waxaanu ka bedelayno waxeeyaan inaan nidhaahno in dowlad xaqa dadoo dhan udhaxaysa dowlad maaragtay nin kastaba kartidiisa iyo kaskiisa uu wax ku helo haddii aan kusoo noqdo su-aashii aad weydiisay magaranaysaa tiri war ururkan magaranaysaa ururkan de ururadan bay isku yimiday meesha macaaridka waxaad maaragta kale uga garab furateen waa tii waxaa dhacday looltan magaranaysaa baarlamanka magaranaysaa lagu loolsamayey ay ka qayb qaateen ururadaas waxaa horta aniga maaragta iga yaabisay waxay ahayd halkii aan ka sugaynay inay de inay wax ka bedelaan waadiga arkay de sida loo doorto de qabiil baa lagu doortaa oo de weligeedba magaranaysaa maxaa radaa de dowladihii soo jiray tii xasan guleed iyo tan ismaaciil cumarba qabiil bay maaragta radaa dad ku doortaan kolka anagu waxaan ka filaynay ururadan magaranaysaa macaaridkeeda shiri wallahi anagu waxaan doonaynaa wadankii inaan nidaam kale keenno in ay tii ismaaciil cumar uun ay soo qaateen magaranaysaa ay yidhaahdeen war maaragtay anaguna baarlamankan aan samaynayno qabiil ayuumaan ku dhisaynaa qabiilkii ha laguba dhisee intay maaragtay maxaan ku dhahdaa dhowr qof oo maaragtay qabiiladii kasoo qaateen unbay yidhahdeen idinku haddaad hebel ka tihiin hebel iyo hebel iyo hebel baan naga soo qaadan in yarna may oran waartay maaragtay wax waan bedeli doonaa de maaragta waxaan ku dhahdaa haddii de meeshii qabiil uga jiraba bal maaragtay maxaan ku dhahdaa dhowr qofood karti leh oo kas leh oo tidhaahdaan magaranaysaa waa kuwaas magaranaysaa iyo annaga de mas-uul naga noqon kara magaranaysaa oon de maamulan meel ku dhiirsanayna ma ay oran magaranaysaa intay dadkii u doorteen ayuu unbay tii dowladdan aan diidanahay samaynaysay ayuunbay iyaguna magaranaysaa meeshii keeneen kolkaan annagu waxaasoo dhan waxaan leenahay maaragta waa in laga tago dadku waa inay mid noqdaan waa in dadku wadanka u dhashay ciday doonta ha ahaatee ha cadaado ha madoobaado maaragta maxaan ku dhahdaa qologuu doona ha ahaado in nin kastaba wixii magaranaysaa dantiisa wadanka inuu ka helo ayaan anagu maarata maxaan ku dhahdaa ku tala jirnaa daraarta aan haddaan maarata halkaa wadankaa taladiisa qaban haddii aad idinku talada qabataan guddoomiye ururkaaga iyo adiguba maxaad ka bedeli doontaa sharciga hadda dalka jira waad maadantay cabdu kolkaasi horta marka ugu horeysa annagu waxa aanu niri waa wadankani horta dadka shicibka waa inay talada laga qaybgeliyo qof keligii uun taliya oo dadkana magaranaysaa maaragtay mas-uuliyadda laga qaadayo waa waxa keenta inuu nin kastaba magaranaysaa maxaan ku dhahdaa uu mas-uuliyadda iska qaado oo cid alle cid wax qabata amba wax maaragtay maxaa dhahdaa nidaam xumadu horta halka ay ka timaadi waa halkaasi weeye kolkaasi waxa aanu leenahay horta maaragtay maxaan ku dhahdaa waa in awoodda la kala qaado oo saddexda maaragtay xubnood ay dowladda maaragtay dowladahan casrigii ku dhisan yihiin in la kala saaro midi waxayaan waa xukuumadda sare
talabaad waxayaan waa xeer dhigin saddexaad waxayaan waa xeer fulin qofkaas saddexdaasi maanta marka aad aragto dowladda Ismaaciil Cumar baa intaasba gacanta ku wada haya annagu waxaan leenahay mid kastiba waa inuu gaar madax banaani u yeesho oo qofka bini aadanka ah ee maaragtay maxaan ku rahdaa ninka shicibka ah maanta dowladdu haddii ay maaragtay maxaan ku rahdaa qabsato ooy sideed wax xaqa aynan ku qabanin in uu maaragtay maxaan ku rahdaa wax daafaca uu yeesho maanta Ismaaciil Cumar baa ku qabanaya ku xiraya iyo wuxuu doona ka yeelaya marka wax alle wax ka soo horjeeda amba qabanaya amba xeer qabanaya ma jiro لكن أنا أقول واحد مارس محمد هذا لا نحي وإن السمية حافظة ما رحبنا عنه هو سنة وحي كانتها إن هدي دولته أي مال أنا اللي جسرين أي مرفض إلى الشيطان إلى ورك صافيان إلى أي جبهة بشيان ومركزي وحي مقولة من زمان كان ودولتي مقرمتها dhibaatooyinka magaranaysaa ay sameeyay haddii jeer marka hore baa ilaahay waxaan kale anagu sameeynaa in dhalinyar badan baa wadankii jirta dhalinyar 25 waxaan u maleeyaa in kastoo oonan maarta maxaan ku dhahdaa deed aanan haynin tirakooda aanan ku haynin waxaa laga yaabaa dhalinyarta 30 jir ka yar inay boqolkiiba 50 ka badan tahay waxaana laga yaabaa boqolkiiba 50 in ka badan inay maanta bilaa shaqo yihiin Jabuuti halka taasna waxaan isku dayaynaa inaan dhalinyarta shaqooyin la u sameeyo shaqooyin la siiyo ugu dambeyntii maxaad gudoomiye u sheegi lahayd ummadda reer Jabuuti inta ku dhageysanaysa waad mahadsantahay cabdi aniga waxay ila tahay waxa ugu weyn muhiimkii in dadka maaragtay reer Jabuuti intay doonto magaranaysa aynkay doonaan haadaan ninka wadanka u dhashay ee reer Jabuuti inay mid noqdaan inay isku duubnaadaan sida gura ay dhibaatada maanta kaga bixi karaan ay maaragtay maxaan ku dhahdaa Ismaaciil Cumar la iskaga kaxayni karo aynan una aqbali karin in mid kale oo yimaada oo yidhaahda dee kursiga unbaan maaragtay ku fadhiisanayaa oo halkii magaranaysaa maxaan ku dhahdaa unbaan ka wadaya waa taasay wajignaadaan kaskooda siyaasadeed sare ay u qaadaan ay nin kastaba eedaan oo ay arkaan ujeedadiisu waxa ay tahay midnimo waa tabura ee maarta maanta dhibaatada inaga saari karta haddagaysanida kuwan in garanaysaa maxaan ku dhahdaa ina kala saaraya kuwan maarta qabiil maarta inoo kala saaraya sida bura een maanta kala xumada meesha taalla aynu isaga kaxan karno aynan ku aqbali karin ku kale oo doonaya ma garanaysaa in uu maanta kursiga ma garanaysaa inta ku fadhiisada siyaasadaasi meesha taallo uun wadana inaynu maarta ka aqbalaynin ayaynu falankeed qaban ururkan maarta maxaan ku dhahdaa UDPS-na waa ka anigu waxaan leeyahay gura ee kala hagaagsan wadan xaq iyo xuquuqi maarta maxaan ku dhahdaa ka socoto waa ka gura ee maarta hore u marin kara waxaan ku soo yara gadeen waxaan oran lahaa cabdiow waa maxsan tahay adigu waxaanan maarta salaamayaa dhegeystayaasha waan una maarta maxaan ku dhahdaa hambalyana waan u dirayaa urur cusub baa tihiin website-na waad leedihiin website-kana inaad noo sheegtaan jeclaan lahaa si dadweynaha danaynaya in ururkiina ay kusoo biiraan amase ay dhaqaalo siiyaan xaggee idinla soo xidhiidhi karaan kolkaasi waa runtaa waa urur waxa website baan maarta leenahay kolkaasi dee haddaan maaragtay dee afkii qaladaan ku sheego www.udds.org kolkaasi marka aad gasho waxaan imika maarata maxaan ku rahdaa samaynay in aad isqori karto kolkaasina aad maaragtay maxaan ku rahdaa aad maaragtay membershipki memberiyategi maarata rahdaa aad iska bixini karto kolkaasi haddii aad maaragtay ilahaanu bixisana waa $10 weeyaan haddii aad tidhaahdo anigu sanadkan iska bixinayaana
وماركت $7 ويا kolkaasi waa PayPal ayaa directamo maartay ka bikreedi ayaa maartay maxaan ku radaa si toos ugu bixin kartaa website-ka hadda maartay gasho aad iyo aad baad u mahadsan tahay gudoomiye Ismaaciil waraysigaada siisay waqtigaaga noo hortay haddaan bahda idaacadda hadal wanaag radio dhageystayaalkaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha ururka UDDS ee degan magaalada Odhawa mudane Ismaaciil Yuusuf Cabdi waa bahda idaacadda hadal wanaag radio oo idile isbaqal dambe oo xiiso leh